أنا هتر هل مدها قبل واحد إسكا قبل عن عاتن عن عيلين عن عاتسنين لكن سميدي أنت سوي استكتوا قروح بدنا قبل دي قل مذوق وقروح بدنا ده وكادي دي بقلال قبل ده قل مذوق وأنا عن كوك أجوان هذا مقالة ده أنا بابور بدنا اسكول عيسو وأدان لبستون استر إسكالي جوا أركايا سوق هيلو كده quruxdu qofba si uu arag haddii aad moodo in dooddu ay ka taagan tahay oo keliya cidda ku fariisanaysa kursiga madaxtinimada Soomaaliya maya xaalku maaha sidaas ee waxaa jira dood kale oo la xiriirta waatuma gabadha ugu quruxda badan hablaha Galmudug waxa ay la soo xiriirtay Hani Axmed Daahir oo ku magac dheer boqorada Muqdisho waxaana ay sheegtay inay ka carootay gabar sheegtay in darteed wiilal badan ay sun u cabeen gabadhaas oo ku nool Galmudug boqorada Muqdisho aan weydiiyo sababta ay u maagtay gabadhaas waa mahadsantahay maxay jiino ana kula soo xiriiray walaalo waxa kula soo xiriiray maadaama habeenadan gabar Soomaaliyeed oo bulsho weyn said u dhax qaaday aan arkay oo ka soo jeeda Galmudug oo sheegatay inay said u qurux badan tahay laakiin ani hadda qurux ma arkin oo hadda gaar ayada ay qurux badan tahay ama sun loo cabo maan aan arkin si fiican aan u fiiriyay quruxdii afartii wiil oo ay dhahday sun iyo cabeen kulay sun meeshaas kama dhicin wiilashaas sun macabayeen caani cabeen oo maleena ana hotar hal mid ha gabadhu waxa iska gabar aan caatan aan cayilin aan caateysnayn stranger way leedahay inay ku kalsoonaatay gurigeeda la joogto ha waa dhigi karaa laakiin media inta soo istaagto qurux badan ay gabadhii Galmudug ugu quruxda badneed waa kaadii boqolaal gabdhood Galmudug oo aniga aan koob ka ahay joogan matalan hadda aniga qurux badan ahay gurigeygaan la joogaa quruxda hadda magaalada aadan baabuur badan oo isku dhaceyso waa adaan labiston star iska dhigo waa arkaya suuqa hilibka daad wiilal badan oo gacmahooda dhiig loo arkay oo waan saaqday dhahay hadaan soo bandhigo oo banaanka keeno de ilama qurux badna marka dumar ahaan ama maseer jira aniga maya ma maseersan maseer ma jiraan kama xumi aniga quruxdeeda ma diidani qurux way leedahay oo ma dhahay ma qurux bad laakiin qurux saayid oo gabadhan ka muuqato ma jirto boqolaal si qurxoon way joogan oo qurux badan Soomaali weyn gabdho badan laga helaa qurux badan ani ayada ahaan waa ka qurux badanahay saaminsanahay adiga quruxdu maxaa ku qiimeysaa quruxdu waxa ku qiimeeyaa qalbiga inay tahay qofka jirismigiisa ma ahan waa qalbiga iyo maskaxda waxaan leeyahay mar dambe hotan meediyaha iyo baraha bulshada inaan la soo fadhiisanin waa qurux badanahay waxaan digniinan ka siinayaa gabdhaha Soomaaliyeed inaan meediya inta la soo istaago qurux badan hada dhamaan waa wada qurux badan yahay ma sha Allah gabdho qurxoon way jiraan waa la wada qurux badan yahay haday ifan dhacdo mar dambe in meediyaha la soo fadhiisto waa qurux badanahay shakhsi ahaan tarko ana ka ina soo fadhiisana media aan liiga dhaxweyneenin dooda ana qurux badan way sii socon doontaa in la garsoorana uma sahlana sida dambiyada caadiga ah mar hadii garsoorayaasha oo rag ah aysan quruxda isku si u arkin Maxamed Yaxya Jiino Raasan TV Muqdisho